السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركز السود واضح أدي هذا ما سنتين ما أنت ومركز لبات وهوذا أنكو كل منه وأربعة سد حدا بشر لبي طبعا ديسمبر سنة كلبا كون يشان يلباتنك. مدحوينه ترامب shalay waa kii Soomaalida ilhaan iyo waliba dalkeena Soomaaliya markale ay maalmahan caado ayuuba ka dhigtay. Haddaba Ilhaan Cumar ayaa arintaasi ka jawaabtay markii waraysi oo la yeeshay telefishinka markii hore la dhihi jiray MSNBC laakiin hadda MS Now isku bedelay adiga toddobaad ka hor waraysi ay bixisay ayaa Ilhaan Cumar waxa la weydiiyay maxaad uga jawaabaysaa eedeymaha Trump adiga iyo waliba community-ga Soomaalida ee Minnesota uu soo jeediyay. Horta dad fara badan waxay aaminsan yihiin Trump Ilhaan ayaa nagu dirtay, anigu dadka aaminsan kuma jiro. Ilhaan waa qof siyaasiyada oo ku jirta baarlamaanka waddanka Mareykanka ama Congress-ka Mareykanka. Iyada iyo Trumpna ku dhawaad xitaa 4 sano hore madaxweyne ahayna sidan ay hadallada isku dhaafsanayeen. Laakiin Trump ayaa isaga si gooni ah ayuu hadda Soomaalida uu u bartilmaameedsanaya waxaana lala xiriirinaya arinta musuqmaasuqa ee ka dhacday gobolka Minnesota in uu Trump doonayo maadaama uu sheeganayo madaxweyne musuqmaasuqa la dagaalama inuu arintaasi Soomaalida darteed u bartilmaameedsanayo. Haddii marka uu hadlo oo Ilhaan ay u jawaabto micnaheedu ma ahan in ay Ilhaan Soomaalida ay ku dirtay madaxweyne Trump. Anigu arintaasi ma aaminsan. Haddii dowladda Soomaaliya madaxdeedii ay ka hadli waayaan waxaad leedahiin waa ay aaminsan yihiin. Haddii ayadii oo waddanka gudaheeda joogtay ay u jawaabtana waxaad leedahiin Trump iyada ayaa nagu dirtay, laakiin anigu arintaasi ma aaminsan. Marka Ilhaan waxa la weydiiyay bal waxyaabaha ay uga jawaabayso maadaama shalay uu iyada qashin ku tilmaamay isla markaana uu eedeymo kala duwan uu u soo jeediyay. Marka waxay tiri madaxweynaha inuu mar kastaba aniga iyo Soomaalida uu ka hadlayo iyo waliba bulshada Soomaalida waxaan u arkaa arintaasi dhab ahaantii inay tahay mid aan caafimaad ahaan wanaagsanayn. Marka waxa ay sheegtay waxaan rajaynayaa in uu helo caawinaad uu u baahan yahay. Marka ninkan waa xanuunsan yahay waxaan u rajaynayaa in uu helo caawinaad uu u baahan yahay. Marka Ilhaan Cumar waxay tiri madaxweynuhu waxa uu isku dayayaa inuu dadka ka leexiyo guuldarooyinkiisa ilaa iyo intii uu madaxweynaha. Waxay tiri howlgaladiisii iyo masaafurintiisii uu ku hanjabayay in dad badan uu masaafurinayo hadda uma socdaan sidii uu isagu u rajaynayay. Canshuurihiisa uu ku soo rogay wadamada caalamkana ma shaqeynayaan oo noloshii ayaa ku qaaliyooday dadka Mareykanka ah isla markaana dadkii Mareykanka ah ma awoodaan xataa waxyaabihii qutul daruuriga ahaa in ay gataan. Waxa ay sidoo kale intaasi ku dartay waxa uu sidoo kale ka cabsanayaa inay banaanka yimaadaan dukumentiyadii Epstein files oo u dagaalamay inaan shaaca laga qaadin isaga iyo waliba xisbiga uu hogaamiyo oo ah xisbiga dhiigga caruurta cabta waa xisbiga Republicaanka ay sidaas leedahay. Marka dad fara badan waxay leeyihiin doona odagi Ilhaan wayba nagu sii dareysa. Waxaan ognahay hadda madaxweynuhu inuu saxiixay labada aqalna ay meel mariyeen sharcigaasi isla markaana 19 bishan ugu dambeyn ay tahay wasaaradda cadaaladdu inay soo bandhigto Epstein files. Marka waxay tiri dadka ayuu doonayaa inuu waxyaabahaasi oo idil uu ka weeciyo. Waxaan sidoo kale ognahay ayay tiri in hadda madaxweynaha baaritaan lagu bilaabi doono oo la xiriiray dambiyo dagaal inuu galay. Trump waxaan ognahay labadii bilood ee la soo dhaafay waxa uu duqeymo la beegsanayay doomo uu sheegay ilaa hadda cadeyn lama hayo inay darooga Mareykanka u soo wadeen gaar ahaan badaha Caribbean-ka. In ka badan 20 duqeymo oo kala duwan ayuu fuliyay oo dad fara badan ay ku dhinteen. Hadda waxa leeyahay mid dhacday 2 September duqeyntii markii doonta lagu dhuftay 2 qof ayaa ka badbaaday, gantaal labaad ayaa lagu dhuftay si labadaasi qof loo dilo. Hadda labadii maalmood u dambeysay warbaahinta Mareykanka ayay ka socotaa. Marka waxa la leeyahay dad aan hubaysnayn oon dagaalamaynin isla markaana qaarkood ba laga yaabay inay dhaawac yihiin in la dhameystiro arintaasi waa dambiye dagaal. Shalay shirka golaha wasiirada xitaa wasiirka dagaalka Pete Hegseth waa la weydiiyay wuxuu yiri aniga duqeynta koobaad markii ay dhacday waan ka tagay meesha taliyihii howshaas ku lug lahaa ayaa amray in duqeynta labaad la geysto. Marka isagu iska fogeeyay. Trump wuxuu yiri waxba kama ogi arintaasi. Marka baaritaan ayaa hadda ku socdo. Waliba duqeymahan Trump uu doomahaasi sheeganayo inay darooga Mareykanka u soo wadaan waxa ay Congress-ku ay ku tilmaameen mid sharci darro ah maadaama aan lagu wargelin ilaa haddana cadeymo aan loo keenin. Waana labada xisbi waliba kuwa Republicana iyo kuwa Dimuqraadiga ayaa diidan. Marka waxay leedahay hadda arintaasi baaritaan ayaa ku socoto inuu dambiye dagaal uu geystay. Sidoo kale waxa la weydiiyay maxaa bulshada Soomaalida uu gaar ahaan
uu u bartilmaameedsanaya marka waxay tiri mar kastaba ninkan cunsuri ayuu ahaa oo islaam naceebka ah waxaan ognahay afartiisii sano hore in wadamada Afrikaanka uu shidhol ku tilmaamay wadamo aan waxba ahayn oo aan bajirinba waxay tiri waxa aan sidoo kale ognahay in markii ugu horeysay uu ku dhawaaqay in uu tartamayo inuu yiri dadka muslimiinta ah ee soo galootiga ah waan ka mamnuucaya Mareykanka waa kii travel muslim banka soo rogay marka waxay tiri wax la yaab leh ma ahan in hadda bulshada ay madowga ah ee soo galootiga ah ee wadankan ku sugan in uu sidan uu u caayo amaba uu u daba dhigto la yaabna ma ahan inuu doorto bulshada muslimiinta oo iyaguna madowga ah sidoo kale in isagu sidoo kale uu wax ka sheego laakiin waxay tiri waxaan rabaa inaan iraado annagu waxaan nahay dad muwaadiniin Mareykan ah baasaboorkeena waxa ku qoran inaan nahay muwaadiniin Mareykan ah sida darteed waxay tiri waan jecelnahay Minnesota waa ay na soo dhaweysay in badan oo inaga naga mid ah Soomaalida ayay ku jeedaa waxay tiri dib ma la dejinin gobolka Minnesota laakiin iyaga ayaa doortay gobolka Minnesota maxaa yeelay ay tiri gobolkaasi waa gobol dadkiisu ay aad u wanaagsan yihiin oo dadka ay soo dhaweeyaan waa gobol aad u qurxan sidaas darteed waxay tiri wax kasta oo madaxweynuhu sheego inagu gobolka Minnesota waa sii deganaan doonaa waana sii joogi doonaa wax kasta oo naga sheegana waxay tiri gobolkaasi hadalkiisa ugama tagayno marka Ilhaan Cumar waxay leedahay Soomaalida intooda badan waa dad muwaadiniin ah isla markaana sharciga wadankan ilaaliya gobolka Minnesota dib u dejin dadkan qaxooti ahaan laguma dejinin laakiin iyaga ayaa doortay in ay degaan maadaama gobolkaasi uu yahay gobol aad u qurxan dadkiisuna dad soo dhaweynta ku wacan yihiin haddaba Ilhaan Cumar markaa oo arrimahaasi ka hadlaysay su'aalahaasani la weydiiyay waxa ay tiri I would say the president's obsession with me and the Somali community is really unhealthy. It's creepy. And I hope that he gets the help that he needs. It sounds like he is trying to deflect from the failures that he's had as president. His immigration rates are not going in the way that he's expected. We know that the tariffs are not working to make life affordable for Americans. We know that he is afraid of what is in the Epstein files as he's fought to be the head of the pedophile protection party. And we know that right now he is being investigated for war crimes that he might have committed when he ordered what seems to be illegal attacks against boats in the Caribbean. He's always been a racist, a bigot, a xenophobic, and Islamophobic. We know that he called African nations a shithole in his first administration. We know that when he came down that escalator, he said he was going to stop Muslim immigration into this country. And so it is not surprising that he is going after black immigrants in this country. And it's certainly not surprising that he's choosing a black immigrant community that is also Muslim. But what I would like to say is that most of us are citizens. On our passport, it says we are nationals of this country. We love that Minnesota has welcomed us. Many of us have not been settled in Minnesota. We chose it as a home because the Minnesota people and the state is beautiful and very welcoming. And we are going to be here regardless of what the president has to say. aad iyo aad mahadsantiin asxaabta muuqaalkan haddii aad dhamaysatay waxaa jira muuqaal kale oo ka horeeyay oo uga hadlayay howlgallada ciidamada ICE ay ka wadaan magaalooyinka mataanaha ee St. Paul iyo Minneapolis oo dadka Soomaalida ah ee sharci darrada ah ee ku bartilmaameedsanayaan iyo baaritaano kale oo dawladdu ay sheegtay dadka degan gobolka Minnesota inay ku sameynayso wal Soomaalidana lagu bartilmaameedsanayo muuqaalkaasina soo daawo aad iyo aad mahadsantiin asxaabta intaan markale kulmi doono waa saaxiibkeen cilmi waro idin la sida iyo nabadgelyo